sideed arrimood oo ay muhiim tahay inaadan samayn markaad rabto inaad qof soo jiidato. dabcan inaga oo idil waan jecelnahay inaan qof soo jiidano, sidoo kale waan jecelnahay inaan qof ku beerno jacayl. haddaba si aad arrinkaa u samayso waxaad ku khasban tahay inaad ruul ku xiran tahay ama aad ruul leedahay. soo muuqaalkan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa 8 arrimood oo ay muhiim tahay inaadan samaynin gabi ahaanba totally inaadan samayn markaad rabto inaad markaa qofkaa soo jiidato. number 1 amba qodobka koowaad, qofka ha xukumin. dabcan adigu ma jeclid in lagu xukumo, sidoo kale ma jeclid adiga in lagu yiraahdo halkee ka timi, intee u socotaa, maxaad qadka doonaysaa, maxaad qadka ka soo raadisay, waqtigan maxaad u soo jeedaa. adigu ma jeclid in sidaas oo kale lagu yiraahdo. soo adigana qofka ha ku xukumin, hana ku oran waxaasoo kale. number 2 amba qodobka labaad, maxaa haysaa qofka ha ku oran. dabcan maxaa haysaa waa oraa fudud uu qof walba maanta isticmaalo, haddana sidaas oo ay tahay inta badan waxay dishaa qalbiga qofka kale oo waxay dareensiisaa in uu ereygaasi yahay erey aanan loo isticmaali karin. haddii aad rabto inaad xiriir si fiican u wanaajiso waxaad ku khasban tahay inaadan isticmaalin ereyga maxaad haysaa. number 3 amba qodobka saddexaad, habdhaqankaaga xun. dabcan habdhaqankaaga xun ma ahan inaad qof fool xun tahay, inaad qof style tahay. no, inaad u dhaqanto sida ciyaalka oo kale, inaad qofka ku tiraahdo hadallo aanan munaasab ahayn, sidoo kale inaad u muujiso qofka inaadan danaynaynin. waxyaabahaas oo dhan waxay hoos imaanayaan dhaqankaaga xun. qodobka afraad amba number 4, ha noqon qof la saadaalin karo ama la qiyaasi karo. dabcan kullama uu qofku qiyaaso ama uu ku qiimeysto waxaa fududaanaysa qofkaas inuu kaa fogaado. waqti badan islama sii socon doontaan qofka hadduu ku qiyaasi karo. number 5 ama qodobka 5aad, waqti badan ha ku bixin qofka aad rabto inaad soo jiidato. dabcan tan inta badan waaynu sameynaa, qofka inaan kool waqti badan la saarnaano, inaan qofka in badan la sheekeysano. taasina way fiican tahay, balse haddii aad qofka mar walba la kulanto waa inaad jaanis u siisaa qofka uu kugu fakari karo. waa inaad waqti u siin kartaa qofkaasi inuu kugu xiisi karo, balse maahan inaad waqti badan aad ku bixiso la joogiisa. number 6 amba qodobka 6aad, ha noqon qof xirxiran. dabcan ma jecla dumarku qofka xirxiran. haddii aad dabeecad ahaan u leedahay xirxirnaanta, haddii aad dabeecad ahaan u leedahay qof aan dadka dhexgelinin, waxaad ku khasban tahay inaad bedesho dabeecadaas. haddii aad ahaan jirtay inaad noqoto qof furfuran, kana qoslin kara qof walba, kaftan badan, waa inaad kaftan badan tahay, waa inaad ka qoslin kartaa qofkaad xiriirka ka rabto. sidoo kalena waa inaad u sheegi kartaa mar walba waxa qalbigaaga kusoo dhaca. number 7 amba qodobka 7aad, hadafkaaga iyo qorshahaaga mustaqbalka ha ka qarinin oo ha oran aniga hadafkeyga waan ka qarsanaya, ha oran. waa inaad la wadaagi kartaa hadafkaagadaada. haddii aad qariso waxaa fududaanaysa qofka inuu usan kula sii waarayn, sababtoo ahay qof walba wuxuu jecel yahay qof hadaf iyo qorshayaal leh iyo hami leh. waa qodobka 8aad amba number 8, wax badan ha ka hadlin naftaada, istusnimada jooji. dabcan haddii aad tahay qof dadka istustusa
haddii aad tahay qof dadka maxaa la yidhahdaa isoo horbuuda, waa inaad joojisaa inuu istustusnimadu waxay hoos u dhigaysaa shakhsiyadaada. soo jooji istustusnimada, wax badan ha ka hadlin naftaada, ana isfaaninin. saaxiibyaal, waxaan rajaynayaa muuqaalka kan inuu ku caawiyey. haddii aad noogu cusub tahay subscribe saar, hadduu videoga ku qanciyey like-ta ku qabo. sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad commenti kasoo bixin doonto. waxaan idinkaga tegay intaan videoga xiga ku kulmi doono khayr.